waan islaamay meel walba joogtay walaalayaal soo dhawaada lagu soo dhawaad wax lagu soo dhawaan mala koleeto laba qodob aan rabay inaan ka hadlo saaka waxaan aqrisanayay subaxda markaan soo kaco horta waxaan fiiriyaa newska badadeedana waxaan fiiriyaa The Guardian ingiriiska wariye laga leeyahay alaa kulli xaal waxaan arkay niman isku sheegayo inay wixii balaayo iyo dhibaato oo dhan dunida ka taagan sabab u yihiin haweenka marka adiga calaa kulli xaal haweeney bay dileen intay dilinna youtube-kii waxyaalahaas ayay magaceeda adiga ka faafinayeen miseba ay ka sheegayeen sababaha ay rabaan inay u dilaan taasu markaan taas saa usii fiiriyey waxaan adiga igu soo dhacday arrinta ka taagan tiktok amal diamond iyo ayaan tafshan runtii soomaali haddii la yiraahdo isku hiiliya haweenkeena waxay u hiiliyaan badidooda ragga hal nin waxa laga sheego gabar walbo intay sawirkiisa isku soo dejiso gadaal isku soo dejiso yaa ayay asagoo ammaanayso mise u heesayso ay saa u soo kici way soo kici ma aqaan waxa gubay haddii wiilba wax laga sheego mise wiil la qabsado gabdhihii oo dhan way soo wada kacayaan dhiigga baa kici balse cadowga ugu koowaad oo ay ka guuleysan la-yihiin haweenka horumarkooda miseba xuquuqdooda waa ayaka dhexdooda ayaka iscaaya dheh wax aadi waxay ka ala keelan wax ay uga fiican yihiin inay ayaka iscaayaan miseba ay rugaan xisaaba amal diamondka runtii waan arki jiray koleyto ayada iyo gabadha kale la yidhahda Queen Qaban waa labada gabdhood oo saan dareemi jiray ugu friid hadday yihiin waa labada gabdhood oo dadka iska dhiciyo af adeeg run ahaantii waxyaalo badan oo adiga laga yaqaanin dhaqan ahaan oo xagga soomaalida dhaqan looga yaqaanin baraha bulshada la yimaaday haddana iska dhiciyo dadka oo danna aan dhegna bilaq u siinin marka haddii aan arko qof Soomaali oo ayaka haystana waan ka danqan jiray waxaan dhihi jiray ma aqaano subaan u guban jiray marka amal diamondkaas inay soo qaadato ayaan tafshan ay ku sheegto qoomuluud wax weyn iyo cajibisa ayay igu noqotay midka koowaad waa anigoo hadda intaan soo qaato intaan sawirkiisa soo qaato ninkan waa qoomuluud waa aniga oo qof kale qoomuluud ku caynayo haddii labadaa gabdhood ayaan tafshan iyo la fiirsho amal diamond gabadha ugu badan inay lesbiyaan tahay waa diamondka sababta tahay ayadaa markaan aragno oo baryahan ugu dambeysay gabar la soo gasho shumiso marka xoogo adiga vibe waxay dadka ay siinaysay inay lesbiyaan tahay vibe-ka ayay siinaysay ayaan tafshanka waxa kale cilada kale oo maanta nin walba uu ku haysto nin oo dhanna soo qaadanayo oo gabadhaas iskaga haysanayaan waa timahaas ay jarata marka horta
haddii aan ka gudbo amal iyo ayaan tafshan labadooda waxaa u badan qoomuluud dad laisku caynayo. horta qoomuluud anaka ma joogno, qoom maxamed aan joognaa. 2001 waa la joogaa. qoomuluudka dadkan ku wada dhegay oo mar walba ay ereyga kalixa kasoo markay hadlayaan ay kasoo hormarayo qoomuluud waagii ma joogo. qoomkaas waa la halaagay, way dhinteen, way rogmadeen. qoomka hadda aan joogno waxaa waaye qarniga waa 21st century. qof walbo intuu iska soo qaato mayka inuu iska hadlo way ka yara fiican tahay. marka haddii labadaasu maanta lesbian haddii la yidhaahdo labadaasu gabdhood, amal diamond ayaa u badan tahay inay lesbian tahay. ayaan tafshan waaba gabar la garanayo oo guur soo martay, 2 ilmood haysato oo ilmo u joogaan. yaa diamondka labadan yaa gabdha u eg, labadan yaa gabdha u eg barfiishada ilmaha Soomaaliya fiiqshada, labadan yaa gabdha u eg. ayaan tafshan baa gabar u eg haddii ilaahay laga baqo. ilaahay ka baqaa adduunyo anaka indhaha maan la-aanahay. ya dadka ma indhahay la-yihiin, ma maskaxday la-yihiin, ma dadka doqmiin bay u malaysa. ya ya waa midka iga yaabay, waan ka aamus wa aniga. horta dad isla qabsaday inaan u kala heliyo way ila fiican tahay. balse marba haddii aad soo gasho dhiigayga dad baa waay baryahan oo dhan waxaan arkay wiilka biijada afkala safarana dhiiga biya ma ahan, dhiiga biya ma war gabdhihiina isku heliya ragga hiilis uma baahno ragga hiilis uma baahno. ya dhaqan, diin, dastuur, wax walba ayaa u heliyey. ya rag hiiliskaaga ma baahno. ya ragba ma jiraan, laakiin inta yaroo adiga haddaad ya maxaad uga dhimanaysiin. waa famous dadkan iyo ck oo sawiritiisii gabdho badan intay soo qaateen xagga tiktok wada abaanahay waxyaalahaas buur saaxib. dadkaas hiilis nigama baahno. hello Freddy, dadkaas hiilis nigama baahno. ya idinka isku hiiliya, gabdha haddaad tihiin, haweeney haddaad tihiin, idinkaa dhibsan. ya raggan hari haween ni dulminayo, idinkaa dulumsan walaalayaal. isku hiiliya idinka, meesha idinka wax isku qaban lahaydeen ayaa isrogaya, idinkaa isku dhegdhegan. mideeda kale amal diamondkaas waxaa kasii daran big man midka la yidhaah. wuxuu big man yahayna malahane. ya bar adduunyo nin baa timaha soo daystay sidii gabadhii ma garani. waad arkaysaa inuu jeel iyo waxyaalaha soo marsaday, tintii soo qurxiyey waad arkaysaa. ba muxuu leeyahay gabadha, muxuu leeyahay maxaa timaha u jarta, oo adiga maxaa timahaad u daysay, timahan maxaa adiga u daysay. aga dadkii ogaadeenkii dhihi jiray ilan waxay la yaabaan bay arkeeno. ogaadeen miya aniga horta agadaasba ma aqaana meelan ka keeno. etoobiyana weligay ma aadin, ogaadeenina weligay ma tegin. adiga dadkii lahjadii baan soo xaday aan u malayo. qabiil malihi aniga waan islaam walaalayaal meel ba joogteen.